waxaa sharaf ii ah in aan maanta oo ay taariikhdu tahay 27kii bisha Sebtembar 2020 si rasmi ah aan ula wareego xilka ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Ra'iisul wasaaraha cusub ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Xuseen Rooble ayaa maanta si rasmi ah ula wareegay xilka kadib markii 23kii bishan ay golaha shacabku siiyeen codka kalsoonida. Siyaayihii ra'iisul wasaaraha Mudane Mahdi Maxamed Guuleed Qadar ayaa ka warbixiyay shaqooyinka muhiimka ah ay soo qabteen golahii wasiirada isagoo u rajeeyay ra'iisul wasaaraha cusub in Rabbi uu ku guuleeyo mas'uuliyadda adag ee ah wadeegida shacabka Soomaalida ee qaranka. ballanqaadka madaxweynuhu waxaa ka mid ahaa sugidda amniga iyo arrimaha amniga sidii wax looga qaban lahaa dib u heshiisiinta dib u eegista dastuurka dib u habaynta dhaqaalaha iyo dakhli kordhinta sareynta sharciga iyo dib u habaynta hay'adaha garsoorka xoojinta nidaamka federaalka ah. Ra'iisul wasaaraha cusub ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Xuseen Rooble ayaa muujiyay arrimaha mudnaanta iyo hortebinta u leh xukuumadda uu soo dhisi doono oo ay ugu muhiimsan yihiin amniga, doorashooyinka, horumarinta dhaqaalaha, cadaaladda iyo adeegyada bulshada. Waxaan soo dhisi doonaa dawlad tayo leh oo dardar gelisa howlaha mudnaanta iyo hortebinta u leh dalka si aan u gaarno guulaha waaweyn ee inaga sugayaan shacabka Soomaaliyeed. ballanteenu waa Soomaaliya oo nabad ah, siyaasad ahaan xasiloon, dimuqraadi ah, leh dhaqaale horumarsan, nabad ku wada nool dariskeeda iyo dunida nabad kula nool. Ra'iisul wasaare Rooble ayaa xusay inuu soo magacaabi doono khabiir sharci oo baaris iyo dabagal ku sameeyo tacadiyada jinsiga iyo kufsiga ee lagula kaco haweenka iyo carruurta isagoo kaashanaya hay'adaha cadaaladda dalka si aan wax uga qabto tacadiyada lagula kaco haweenka iyo carruurta Soomaaliyeed iyadana mudnaanta koowaad ayaan siinayaa taasoo muddo badan ugu soo noqnoqotay. waxaan magacaabi doonaa insha Allah khabiir sharci oo xil weyn iska saara baarista si uu uga shaqeeyo hay'adaha cadaaladda iyo garsoorka. munaasabadda xil wareejinta ay ka qabsoontay xafiiska ra'iisul wasaaraha ayaa waxaa ka qayb galay gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka Mudane Cabdiweli Sheekh Ibraahim Muudey, wasiirada xilka sii haya xubno ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka iyo diblomaasiyiin iyo marti sharaf kale. Nasr Bashiir Cali, warbaahinta qaranka magaalada Muqdisho.